وهاجا qaar kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka Soomaaliya ayna kamid yihiin musharaxiinta ugu cadcad oo u tartamaya xilka madaxtinimada ee wadanka ayaa lagu wadaa inuu shir uga furmo caasimadda Muqdisho shirkaasi oo la sheegay in uga risan doonaan doorashada soo socota dhanka kale waxa xalay kulan yeeshay ra'iisul hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabshukuur kuwaasi oo la sheegay inay ka heshiiyeen khilaaf u dhaxeeyay faafahinta warkaasi waxay noo hayeen wariyaha magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan bashiirow tan iyo khamiistii waxaa dib magaalada Muqdisho ugu soo laabtay siyaasiyiin waaweyn oo xil waaweyn ka soo qabtay dowladda federaalka xilliye kala duwan sidoo kalena ah murashaxiin u tartamaysa xilka madaxweynaha doorashada dhici doonta bilowga sanadka soo socda dhammaantood waxay ka hadlayaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dhawaanta la magacaabay sidoo kale xalay waxaa jiray kulamo murashaxiinta qaar u dhaxeeyay tusaale ahaan ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu gurigiisa ku booqday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi si weyn dowladda uga soo horjeeday isla markaana ay dhowr jeer xurgufo dhex martay dowladda iyo isaga Xasan Cali Khayre wuxuu raaligelin ka bixiyay weer lagu qaaday gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur isagoo u hoyday dabadeedna Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu bartiisa Facebook soo dhigay in uu ka aqbalay raaligelintaas uu bixiyay Xasan Cali Khayre tigistaas Xasan Cali Khayre xaqiiqtii siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa ay soo gabagabaysay dood ku aadaneyd shir ay yeelanayaan madaxda murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha qaarkood oo Muqdisho uga furmi doona maalmaha fooda inagu soo hayay kaas ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada ee Soomaaliya sidoo kale Xasan Cali Khayre waxa uu kulamo la qaatay madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed kulamadaas waxaa looga hadlayay ajendayaasha looga wada hadli doono kulanka ay leeyihiin qaar kamid ah murashaxiinta xilka madaxweynaha oo shirkooda u bilaami doono maalmaha fooda inagu soo haya iyo sidii ay go'aan midaysan uga qaadan lahaayeen doodooda ku aadan gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dhawaanta la magacaabay marka dabcan waxaan sugnaa waa shirarkoodaas iyo go'aamada kasoo baxa inkastoo dadka qaarkii ay og yihiinba mowqifka murashaxiintaas oo ay ku diideen guddigii doorashooyinka ee dhawaan dowladda federaalku ay magacowday sidoo kalena ay magacaabeen qaar kamid ah maamul goboleedyada gaar ahaan gudiyada doorashooyinka ee dowlad goboleedyada la rumaysan yahay in ay dowladda dhexe aada isugu dhow yihiin Ibrahim Maxamed Aadan wariyaha magaalada Muqdisho ayuu kaasi haa inoo faafahinaya shirka maanta la filayay magaalada Muqdisho uga furma qaar kamid ah mucaaradka oo sheegay in markaasi doonaya inay ka arasada xaaladda wadanka